فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه، كن سعيدا. السلام عليكم. waxaan ahay qaasim maxamed. ku soo dhawow muuqaal cusub. aad ayay u wanaagsan tahay in naftaadu gaarto guulo badan, balse waxaa ka sii wanaagsan inaad noqoto qof qiimo leh. guushu iskeed kuma timaado. guushu waxay inta badan ku tiirsan tahay qiyamkaaga iyo qiimahaaga. sidaasi darteed, intii aad ka shaqayn lahayd kordhinta heerka guushaada, waa inaad ka shaqaysaa sare u qaadidda qiimahaaga. wax kasta oo aad qorsheynayso waxay ku xiran tahay qiimaha aad bixiso. qiimaha aad bixiso ayaa go'aaminaya sida dadku kuu qiimeyn doonaan. ha xanaaqin marka ay dadku ku qiimeyn waayaan, balse waa inaad tusisaa qiimaha aad xambaarsan tahay. dadka intooda badan ayaa kula soo xiriiri doona oo kula yeelan doono xiriiro kala duwan marka ay arkaan qiimaha aad xambaarsan tahay. haddaba, sideed ku noqon kartaa qof qiimo leh? xoogga saar korriinka shakhsiyadaada. waa in ay kaa go'an tahay horumarinta shakhsi ahaaneed ee naftaada. dhab ahaan isku weydii haddii ay dhab kaa tahay oo ay kaa go'an tahay inaad kobciso shakhsiyadaada. marba jawaabtaadu haddii ay haa noqoto, waa inaad bilowdaa inaad naftaada u hurto qaab kasta iyo xeelad kasta oo aad ku korin karto shakhsiyadaada. wax aqri, xirfad baro, dhaqamada wanaagsan ku tababar naftaada. sameey waxyaalaha kaa caawinaya inaad u korto xigmad ahaan, aqoon ahaan, faham ahaan iyo xiriirka wanaagsan oo aad la yeelato dadka. bixi qiimo badan. ma jirto si ay dadka kuu gartaan inaad tahay qof qiimo leh haddii aadan bixinayn qiimo badan. ma dhihi kartid waxaan ahay dhakhtar caafimaad adigoo aadan weli qofna ka caawin baahi caafimaad. waa inaad bilowdaa bixinta qiimaha kugu fudud oo aad bixin karto, si dadka kugu hareeraysan ay u arkaan adiga qiimahaaga. oo xasuusnow, kulama aad soo bandhigto qiimo bixintaada, waxaad noqonaysaa qof qiimo sare leh oo qiimihiisa uu sii kobcayo maalinba maalinta ka dambeysa. bixi qiimo badan, adiguna maalin walba waxaa kuu sii kobci doona qiimahaaga shakhsiyeed. afayso xirfadahaaga. ma leedahay xirfado? ma jiraan wax aad ku wanaagsan tahay? haddii aad tidhaahdo maya ama ma aqaan xirfadeyda iyo waxa aan ku wanaagsanahay, waxaad u baahan tahay inaad isbarato, waayo ma jirto qof aan lahayn xirfad. waxaad u baahan tahay inaad ogaato xirfadahaaga, kadib waxaad u baahan tahay inaad xoojiso xirfadahaas. sida keliya ee xirfadahaaga aad ku afayn karto ayaa ah inaad dhaqangeliso, kuna dhaqangeliso adigoo u isticmaalaya meelaha qiimaha u leh bulshada. naftaada uga shaqay si adag. mar walba ku dadaal inaad ka fiicnaato shalay sidaad ahayd. waxaad u baahan tahay inaad naftaada u shaqayso. haddii aad beddesho naftaada, wax walba ayaa kuu beddelmi doona. waxaad beddeli kartaa habfikirkaaga. waxaad beddeli kartaa wax akhris la'aantaada. waxaad beddeli kartaa caadooyinka aan wanaagsanayn ay leedahay naftaada. waxaad beddeli kartaa saaxiib walba oo aan u wanaagsanayn naftaada. waxaad beddeli kartaa xeeladaha ama hagayaasha noloshaada. laakiin mar walba waxaa joogto kuu ah halka aad u socoto iyo rumaynta riyooyinkaaga. ku dadaal inaad noqoto qof wanaagsan, oo ha isla barbardhigin qof kale. ogow, qofka keliya ee kaaga baahan inaad isku daydo inaad ka wanaagsanaato waa qofkii shalay aad ahayd. qiimey waqtigaaga. ahow mid ka faa'iidaysta waqtigiisa oo aan ku bixin waxyaabaha aan kobcinayn maskaxdaada iyo caqligaaga. ku maalgasho waqtigaaga wax aqris, jirdhis, waxbarasho, hurdo kugu filan, shaqo iyo wax kastoo muhiim u ah naftaada. ogow, waqtigaaga waxa ugu badan oo aad geliso ama aad ku bixiso ayaad heli doontaa natiijadiisa. ugu dambeyn, isbar dadka oo tusi qiimahaaga iyo waxtarkaaga, si ay kugu qiraan inaad tahay qof qiimo sare leh oo ay ka faa'iidaystaan la jooggiisa kana murugoodaan maqnaashadiisa. hagaag, inta aan goordhow ku kulmi doono muuqaalka soo socdana waxaan ku leeyahay, qiimaha ay naftaada kula leedahay adiga cidna kulama oga
ilaa aad soo bandhigto tayada ay leedahay naftaada. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.